بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. maanta ay taariikhdu tahay 22 bisha Agoosto 2023 ayaa fadhiya guddoonka sare ee golaha dhexe ee xisbiga Sinaanta Ammaanka Midnimo Ololeynta SAMO kadib markii shir isdaba joog ah ee lagu qabtay xarunta xisbiga Sinaanta Ammaanka Midnimo Ololeynta oo maanta la isku waafaqay wixii ka soo baxay kulankaasi in baaq ahaan warmurtiyeed loogu jeediyo shacabka Soomaaliyeed dhibaatadii ama shaqaaqadii 19 Agoosto 2023. shirka intuusan warmurtiyeedka si rasmi ah loo fasaxin waxaa quraanka kariimka aayadaha quraanka inoogu furi doona mudane Sheikh Hussein Ahmed Usman. falyatafadal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. aad buu mahadsan yahay Sheikh Hussein Ahmed Usman oo aayadaha quraanka kariimka inoogu furay shirkeena maanta iskugu yimaadeen dhammaan madaxdii sarsare iyo guddoonka golaha dhexe ee xisbiga Sinaanta Ammaanka Midnimo Ololeynta ee SAMO. ujeedka kulanka maanta hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa looga hadli doonaa ilaa 5 qodob oo iskugu jira ama kala ah qodobadii ka soo baxay shirkii isdaba jooga ahaa u qabsoomay golaha dhexe oo maanta loogu fadhiyo in warmurtiyeed ahaan lagu soo saaro. qodobadaasi qodobka koowaad waxaa laga hadli doonaa in loo tacsiyeeyo dadkii ku waxyeeloobay weerarkii 19 Agoosto. 2 in la cambaareeyo weerarka generaal Soomaaliyeed ee loogu weeraray hoygiisa. qodobka 3 waxaa laga hadli doonaa haddii alla idno mudaharaadada iyo kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee sameynayaan ayaa laga hadli doonaa. iyo qodobka 4 oo ah in gargaar loo fidiyo dadka ku waxyeeloobay hadday tahay dhinaca weerarka, hadday tahay kuwa ku waxyeeloobay dhinaca maxaa la yiraahdaa mudaharaadyada ku soo gaaray. ugu dambeyn waxaana baaq loogu joodin doonaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo beesha caalamka baaqaas ay faahfaahsan soo jeedin doonaa mas'uuliyiinta sarsare baaqaas ugu dambeeyo oo maanta loogu talgalay kadib markii kulamo isdaba joog oo u qabsoomay xisbiga Sinaanta Ammaanka Midnimo Ololeynta. ujeedkiisa ugu horeeya waxaa halkan kusoo dhaweyneynaa guddoomiyaha xisbiga Sinaanta Ammaanka Midnimo Ololeynta mudane Ugaas Aweys Sheikh Hussein Honero. mudane guddoomiye falyatafadal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka hore waxaan salaameynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadda. waxaan leenahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. annagoo ku salaameynaa magaca xisbiga Sinaanta Ammaanka iyo Midnimo Ololeynta SAMO. waxaan leenahay insha allahu tacaala
ilaahay ariirigan iyo amni darida dalkeena 36 sano ku socdo ilaahay hanaga dulqaado ayaanu leenahay. waxaan codsanaynaa markaa meel kastaba nin Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda markastaba markii salaad la tukado 5 salaadood midkood markii la tukado isla markaasba in loo duceeyo qaranka inuu ka baxo foodada iyo ismaqal wayda shacabka insha allahu tacaala. taas ayaanu leenahay xisbi ahaan. tan kale waxaan leenahay aad iyo aad baan uga xunnahay shaqaaqadii ka dhacday